السلام عليكم guys waan idin salaamay meel kasto joogtaan xaalad walba ku sugan tihiin waxa muuqaalkan u diirayaa walaalkay maxamed salaad hooyada way ku dhashay xaqay kugu leedahay waaji shariif dhibaatay kula soo martay ani maxamed shariif isku xaafada ahayn aabiisi hooyadiisba guriyeenoo isku dhagan yihiin hal wada isla deganahay maxamed salaad waxa ku leeyahay hooyada hadii ay gabadhaas coleysatay ina kala qarisay ahayd laakiin ina dhahda ma hooyaday ma wax kama saari karo hooyaday ma saan ani walaashay ahay waliba ka weyn maxamed salaad dibkii hooyada ka soo marto ogtahay wiilkaas oo yar hooyadiisa bis kala tageen hadii uu gurigaaga ku dumay hooyada darteed sno big deal way dhici kartaa maamooyin badana ee ka imaata ma fahantay baaji shariif abaalkeeda ma ina saameyso waa xalin kartay si fudud baaji shariif qofay magaalo ku fahmeyso waaye maxamed shariif marka waxa ku leeyahay horta waxaan daroogadan iyo baqtigan waa wax ku waalooyo adi qof xun ma ahayn fahmaysaa qof xun ma ahayn waxaan ku waalooy daroogada waaye iska dhaaf please aa ku isticmaalaysid life-ka soo gali jirtay video dhowr ka arkay waa laga fiican yahay tan oo kaleete waxun waaye marka waxa ku leeyahay bro isdiib ilaahna isku dhiib tamora ilaahay u dhawaato wax kasta way ku xalismayaan gabadhaasna calfa ku galay ilaahana awlaad inka dhex qoray jasina naftaada goysana diin la'aan iyo maal la'aan waaye marka waxa ku leeyahay isdaji insha Allah wax walba okay ku noqonayaan biidnillaahi baari maxamed salaad dhagaaga fur hooyada baaji shariif balaaksi maqaayad ku shidoosa waa fahantano lacagti dhaxalka aabaha xataa hal senti kama aada siinin waa lagu soo dhalay waa lagu soo walacay uura lagu soo qaaday waa lagu koriyay rajada kaliya ee wax qabad ee hooyada ay filanaysa adiga ahayd maanta way ku baahan tahay waxba qatar iska dhigin 100 katiin iyo 100 silsiladood iyo iPhone iyo balaayaha isku rarin hooyada waxay u baahan tahay maxamedkii ee walacada caloosha ku qaada ee foolatay rajadan uu ahaa inay korisay rajadana maalin ay ku intifaacaysa isleed wiilkaaga wuxuu noqonaa wiilasha Soomaaliyeed oo wanaagsan oo ku xambaaro xuquuqdaadana ma gudi kare wax uu noloshaada haaya gacanta ku haaya curada tahay maxamed salaad qof runta ku sheegaa laadahay baraanki hooyaday waxaas ay ugu sameey jirtay waxbarasho ay diijist 100 dugsi 100 iskoola lagu geeyay waana diiday iskoolka Turkiga oo fariiga ahaa inta lagu geeyay adii Faadmadu kula dhaltay Faadma dhigatay dhameysane adigana aameel cilla uga dhaqaaqday askarinimay ku qortay si aad dalkaagii noloshaada u difaacato hooyadan wax ugu darto waa ka soo tagtay maxamed salaad daroogo wax fiican maaha hooyada way ku baahan tahay way kugu soo jilba muruxday darta waa loo cabiidsaday shaqaale u noqotay darta waa taqaanaa naagti lahayd dahraan ee shaqaale u ahayd hooyada si adi noloshiina iyo kirada iyo biilka gurigaas ay u difaacdo aabaha salaad Allah u naxariisto ku soo support gareeyo ku soo caawiyo garabkaaga uu soo istaagay laakiin hooyo aaba kala tago qof kasta way fahmi kartaa hooyo aaba kasta oo kala tago ilmaha hooyada heesato aa ku dhabar jabto been miya ilaahay ku dhaarshay nimanka Soomaaliyeed markay naagaha furaan 100% sida naagta ay qabaan muu garab istaagaan laakiin way caawiyaan aabayaal fiican oo caawiyo caruurtooda oo jiraan aabayaashaas oo kamida ilaahay naxariisto jannasi adeerkay aboowe isqabo runta in lagu sheega u baahan tahay maxamed salaad maalintii 36 gashay Hargeysa joogtay ee jaalka lagu waday xabsiga lagu haay way ka dhaqaaqi kartaa hooyada iifanta hadalkayga saaxiib waxa ku garab istaagtay ee ku lahayd wiilkayga ilaaw cadaawaha iga fuji faataxada la ii maro maxamed salaad maanta dhibka soo galay ee wal bahaaraysa maalina wax noqoto garabkeeda soo istaagtay ahayd hooyada listen hooyada baaji shariif ilaah horta ku soo hanuuniyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigaaga u soo jeediyo
ilaahay wanaaga hooyo ha ku tuso ilaahay rabbi raxmaanka ahay waxaan kaaga baryaa in ilaahay السلام عليكم دمان umada Soomaaliyeed meel kasto joogtaan waa in salaamay waa miskiintiini Sihaam maxamed qof wanaagsan inuu saneen meeshaas ka garo xaaskiisa xabiib waa taasa depression iyo xanuun iyo qiyaano oo u geystay ay dhakhtar kula jirtaa wuxuu dhahay hooyaday way dhimatay aabaheena wuu dhintay habartay hooyadiis asoo la nool habartiis ka dhigay habartay way gumeysataa habartay cuntada way iga dhameysataa si xun ay gashay hooyaday la dhalatay please caawi 2018 asaas ku sameeyay way aamintay hadda dhow wuxuu maleenaysay inuu yahay waxaan lahaa hooyo la'aan aaba la'aan yahay noloshiisii waqti gelisay way isku dhiibtay way xanaaneysay lacagay siisay nololay siisay jacaylay siisay familay siisay qoysay ka dhigtay ma fahantay kaarkeeda ee siisay dhahday isticmaal wax alaalo wixii aad u baahan tahay ha baahanin dib jir ha noqonin qof waxa weydiisanin waxa ku balan qaadaya nolosha inta ka dhiman ilmaheeda lacagtooda ee qaadato yacni ay afku u gelinaysay soo qof ugu baahanin adoo kale ma guuleysto adoo kale hadduu doorto xabiibo ma qasaarayso insha Allah laakiin adiga ay tiinkaaga yaa cuntay responsible ku xareysay markaa dhehaysid maslax yariiso wiilka adiga aabaha u tahay ani ma dhalin waxa sababa ma taqaanaa wuxuu dhahay cunugaas hadaa arka maslax la dhahay yariiska oo si dhale beerkiisa gadana anina taajiro leh raba aabahi cunugii maraw already laadara tahay hooyadana waxa ogeeda ku dhahday hooyaday sharmuuto waaye dhilo waaye saqajaamad waaye alkulisto hooyiso masaakiin ah oo waliya jaad cunin oo waliya sigaar cabin oo miskiin ah oo sas dhah Soomaalida qaar la safanayso oo dhahaysay wiilkan wiil fiican waaye gabadhaas waxa ooyin ka baxay waxa xanuun ka baxay waxa qalbigeeda gubo korbilisaad ka biisma dheera adoo nolol u diyaarsan ku talagal inaa heer gaarto farxad iyo jacayl iyo nolol samaysto gawar qofka ku dhow adduunka hadoo khiyaano kugu khiyaano noloshiisa da oo sajirin oo sheegtay 16 sano jira beentiis waa 23 sano jira maxamed 16 sano jira nolosha waa kaasa hooyo malihi aaba malihi darbijiifa ahaan jir birmay suguntoona cuni jire hooyisa dhabarka ka jabtay u shaqeynaysa aabiisna uu taa kuleen jire hooyisa aabiisna asoo yare kala tageen maxamed waxa soo dhiba maxaa kugu kilifay wallahi billahi inaa ku deenaynin ani ma fahanti because xumaatadaada madaxayga qaadi Assalamu alaykum guys waan idin salaamay meel kasto joogtaan xaalad walba ku sugan tihiin waxa muuqaalkan u diirayaa walaalkay maxamed salaad hooyada way ku dhashay xaqay kugu leedahay waaji shariif dhibaatay kula soo martay ani maxamed shariif isku xaafada ahayn aabiisi hooyadiisba guriyeenoo isku dhagan yihiin hal wada isla deganahay maxamed salaad waxa ku leeyahay hooyada hadii ay gabadhaas coleysatay ina kala qarisay ahayd laakiin ina dhahda ma hooyaday ma wax kama saari karo hooyaday ma saan ani walaashay ahay waliba ka weyn maxamed salaad dibkii hooyada ka soo marto og tahay wiilkaas oo yar hooyisa biis kala tageen hadii uu gurigaaga ku dumay hooyada darteed sno big deal way dhici kartaa maamooyin badana ee ka imaata ma fahantay baaji shariif abaalkeeda ma ina saameyso waa xalin kartay si fudud baaji shariif qofay magaalo ku fahmayso waaye maxamed shariif marka waxa ku leeyahay horta waxaan daroogadan iyo baqtigan waa wax ku waalooyo adi qof xun ma ahayn fahmaysaa qof xun ma ahayn waxaan ku waalooyo daroogada waaye iska dhaaf please ku isticmaalaysid life-ka soo gali jirtay video dhowr ka arkay waa laga fiican yahay tan oo kaleete waxun waaye marka waxa ku leeyahay bro isdiib ilaahayna isku dhiib tamora ilaahay u dhawaato wax kasta way ku xalismayaan
gabadhaasna calafaa kuu galay ilaahana owlaad inka dhex qoray jasinaa naftaada goysana diin la-aan iyo imaan la-aan waaye marka waxaa ku leeyahay isdeji insha allah wax walba okay kuu noqonayaan biidni illaahi baari maxamed salaad dhagahaaga fur hooyadaa bahji shariif balaagsiya maqaayad ku shidoosaa waa fahantano lacagtii dhaxalka aabaha xataa 1 senti kama aada siinin waa lagu soo dhalay waa lagu soo walacay uuraa lagu soo qaaday waa lagu koriyey rajada kaliya ee wax qabad ee hooyada ay filanaysa adiga ahayd maanta way ku baahan tahay waxba qatar iska dhigin 100 katiin iyo 100 silsiladood iyo iPhone iyo balaayaha isku rarin hooyada waxay u baahan tahay maxamedkii ee walacada caloosha ku qaada ee foolatay rajadan uu ahaa inay korisay rajadana maalin ay ku intifaacaysa isleed wiilkaaga wuxuu noqonaa wiilasha Soomaaliyeed oo wanaagsan oo ku xambaara xuquuqdaadana ma gudi karee wax uu noloshaada haaya gacanta ku haaya curada tahay maxamed salaad qof runta ku sheegaa laadahay baraankiye ahayd hooyaday waxaas ay ugu sameey jirtay waxbarasho ii diijist 100 dugsi 100 iskoola lagu geeyay waana diiday iskoolka Turkiga oo fariiga ahaa inta lagu geeyay adii Faadimadu kula dhaltay Faadimo dhigatay dhameysane adigana aameel cilla uga dhaqaaqday askarinimay ku qortay si aad dalkaagii noloshaada u difaacato hooyadan wax ugu darto waa ka soo tagtay maxamed salaad daroogo wax fiican maaha hooyada way ku baahan tahay way kugu soo jilba muruxday darta waa loo cabiidsaday shaqaale u noqotay darta waa taqaanaa naagtii lahayd dahraan ee shaqaale u ahayd hooyada si adi noloshiina iyo kirada iyo biilka gurigaas ay u difaacdo aabaha salaad allah u naxariisto ku soo support gareeyo ku soo caawiyo garabkaaga uu soo istaagay laakiin hooyo aaba kala tago qof kasta way fahmi kartaa hooyo aaba kasta oo kala tago ilmaha hooyada heesato aa ku dhabar jabto been miya ilaahay ku dhaarshay nimanka Soomaaliyeed markay naagaha furaan 100% sida naagta ay qabaan muu garab istaagaan laakiin way caawiyaan aabayaal fiican oo caawiya caruurtooda oo jiraan aabayaashaas oo kamid ah ilaahay naxariisto jannasi adeerkay aboowe isqabo runta in lagu sheega u baahan tahay maxamed salaad maalintii 36 gashay Hargeysa joogtay ee jaalka lagu waday xabsiga lagu haayay way ka dhaqaaqi kartaa hooyada ii faanta hadalkayga saaxiib waxa ku garab istaagtay ee ku lahayd wiilkayga ilaaw cadaawaha iiga fuji faataxada la ii maro maxamed salaam maanta dhibka soo galay ee walwaleys bahaaraysa maalina wax noqoto garabkeeda soo istaagtay ahayd hooyada listen hooyada bahji shariif ilaah horta ku soo hanuuniyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigaaga u soo jeediyo ilaahay wanaaga hooyo ha ku tuso ilaahay rabbi raxmaanka ahaa waxaan kaaga baryaa in ilaahay assalaamu calaykum dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto joogtaan waa in salaamay waa miskiintiini Sihaam maxamed qof wanaagsan inuu saneen meeshaas ka garo xaaskiisa xabiib waa taasaa depression iyo xanuun iyo qiyaano oo u geystay ayay dhakhtar kula jirtaa wuxuu dhahay hooyaday way dhimatay aabaheena wuu dhintay habartay hooyadiis asoo la nool habartiis ka dhigay habartay way gumeysataa habartay cuntada way iga dhameysataa si xun ay gashay hooyaday la dhalatay please caawi 2018 asaas ku sameeyay way aamintay hadda dhow wuxuu maleynaysaa inuu yahay maxaa lahaa hooyo la'aan aaba la'aan yahay noloshiisii waqti gelisay way isku dhiibtay way yacni way xanaaneysay lacagay siisay nololay siisay jacaylay siisay familay siisay qoysay ka dhigtay ma fahantay kaarkeeda ee siisay dhahday isticmaal wax alaalo wixii aad u baahan tahay ha baahanin dib jir ha noqonin qof waxa weydiisanin waxa ku balan qaadaya nolosha inta ka dhiman ilmaheeda lacagtooda ee qaadato yacni ay afku u gelinaysay soo qof ugu baahanin adoo kale ma guuleysto adoo kale hadduu doorto xabiibo ma qasaaraysa insha Allah laakiin adiga ay tiinkaaga yaa cuntay responsible ku xareysay marka dhehsid maslax yariiso wiilka adiga aabaha u tahay ani ma dhalin
waxa sababa mataqaanaa wuxuu dhahay cunugaas haddaa arka maslax la dhahayo riiska oo si dhale beerkiisa gadanaa aniina taajiro lee raba aabihii cunugii maraw already laadara tahay hooyadaana waxaa ogeeda ku dhahday hooyaday sharmuuto waaye dhilo waaye saqajaamad waaye alkulisto hooyadiisoo masaakiin ah oo weliya jaad cunin oo weliya sigaar cabin oo miskiin ah oo sas dheh soomaalida qaaraa la safanaysa oo dhehaysa wiilkan wiil fiican waaye gabadhaas waxa ooyin ka baxay waxa xanuun ka baxay waxa qalbigeeda guba kor bilisaad ka isma dheera adoo nolol u diyaarsan ku talagal inaa heer gaarto farxadii jacaal iyo nolol samaysto gabadha qofka kuu dhow adduunka hadduu khiyaano kugu khiyaano noloshiisa da oo jirin oo sheegtay 26 sano jira beentiis waa 23 sano jira maxamed 26 sano jira nolosha waa kaasa hooy malihi aaba malihi darbijiifa ahaan jir birmiis uguntoona cuni jire hooyisa dhabarka ka jabtay u shaqeynaysa aabiisna uu taa kuleen jire hooyisa aabiisna asoo yare kala tageen maxamed waxa soo dhiba maxaa kugu kilifay wallaahi billaahi inaa ku deyneenin ani ma fahanti because xumaatadaada madaxayga qaadi